wacan wanaagsan ku soo dhowaada qiso cajiiba. Haweeney ayaa soo gashay goob lagu iibiyey dharka kuwooda ugu qaalisan. Waxay muraayadda ka aragtay aabba ka mid a dadka danyarta ah oo bannaanka taagan, fiirinayana dukaanka dharka lagu iibiyo, isagoo indhaha soo saaray muraayadaha goobtaasi ganacsi. Way u yeertay, waxayna ka dalbatay in gudaha loo soo fasaxo ninkaasi miskiinka. Wuu soo galay ninkii, waxayna ka dalbatay inuu doorto labiskii anfacaya goobtaas yaallo. Si xishood leh ayuu ku fiiriyey dareeska carruurta ama dharka carruurta hortiisa yaalay. Haweeneydii ayaa u dalabtay 2 kartoon oo dhar kuwa carruurta. Way iska fadhiisatay iyadoo daawanaysa farxadda ninkaasi miskiinka ka muuqata. Markay dhammaysteen dharkii ay halka ka iibsanayeen, ninkii wuu u mahadceliyey si saa'ida, weliba asigoo u duceynaya ayuu sii baxay. Haweeneydii ayaa damacday inay bixiso lacagtii xisaabaadka ahayd ay wax ku iibsadeen, balse markii loo keenay warqad jeega ah, waxaa dusheeda ku qornaa kuna saxiixnaa magaca ninka meesha iska lahaa. Waxaana ku qornaa jeegaasi: ma haysano aalad xisaabiye ah oo awooda inay xisaabiso qiimaha bini'aadamku leeyahay. Mar waliba oo sadaqada aad badiso waxaa badanaya risqiga Alla ku siinayo. Mar waliba aad badiso khushuuca salaada waxaa badanaya farxadaada. Mar waliba oo sidoo kale aad badiso inaad baari u noqoto waalidkaaga waxaa badanaya guusha noloshaada. Waxaa warbixintan turjumay xasan maxamed aweys, waxaan idin socodsiinaya anigu ah Gacal Ayman. Si sheer garee oo la wadaag asxaabtaada si warbixino iyo sheekooyin badan aad u heshaanna subscribe saar channelka YouTube-kan ku leeyahay Gacal Ayman, sidoo kale boggaan